I'm wishing that you will have a great week. Direct from Washington, the voice of America, VOA. halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka VOA somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin 10 bisha May sanadka 2021 afrikada bari saacadu waa 6 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadeena saaka waxaa ka mid ah qarax xalayta ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen saraakiil ka tirsanaa ciidamada booliiska. fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waabari ee gobolka Banaadir halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf xubno kale oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaa isla markaana qayb ka ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyo meesha ayuu ku yimid qofka nafti halligaha ah oo qarxiyay naftiisa iyo nafta dad kale oo waxba ka galabsanin. sidoo kale waxaad maqli doontaan doorashadii dhawaan ka qabsoontay dalka UK oo saameyn dhinaca siyaasadda ah ku yeelanaysa dalkaasi. muslimiinta caalamka ee sanadkan ayaa mar kale ciidaya iyadoo uu jiro xanuunka COVID-19 wadamo badanna weli ay xayiraadi saaran tahay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay qarax lala beegsaday saldhigga booliska ee degmada Waabari. qaraxan oo aad u xooganaa ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac. ilo dhinaca amniga ah ayaa u sheegay VOA-da in weerarkan ay ku dhinteen 6 qof oo 5 ka mid ah ay yihiin ciidamada booliska qofna uu yahay shacab. wakaalada wararka ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarka ay ku dhinteen taliyihii booliska ee degmada Waabari iyo weliba taliye ku-xigeenkii qaybta booliska ee Weliyo Cadde. wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu fuliyey qof watay jaakad laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. saraakiisha dowladda ayaa waxa ay ku eedeeyeen al-shabaab in iyadu ay ka dambeysay weerarkaas. qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in 120 askari oo kasoo jeeda Itoobiya kana mid ahaa ciidamada nabad ilaalinta u jooga gobolka Darfur ee galbeedka dalka Suudaan ay isku dhiibeen hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR. ciidamada ayaa qayb ka ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee muddo xiroodkoodii dhammaystay loona celin lahaa dalkooda. waqtiga uu xilkoodu dhammaanayay ee ciidamadan ayaa la sheegay inuu yahay 31 bisha Disembar ee sanadkan. hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in askartan la geyn doono meel lagu sugi karo ammaankooga iyo weliba nabadqabkooga. ma cadda ilaa iyo hadda in dhammaan askartan isdhiibtay ay kasoo jeedaan gobolka Tigray ee dalka Itoobiya oo ay dowladda Itoobiya dagaal ku qaaday. mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkii dunida inala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. sidii dhegeystayaal wararka ku maqlayseen qarax uu geystay qof isku soo xidhay waxyaabaha qarxa ayaa xalay ka dhacay saldhigga degmada Waabari ee gobolka Banaadir. qaraxa waxaa lagu dilay saraakiil uu ka mid ahaa taliyihii saldhigga Allahu naxariistay gaashaanle Axmed Sheekh Cabdullaahi Baashane. waxaa sidoo kale waxyeelo kasoo gaartay askar iyo dad rayid ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdulcasiis Barro. sida uu xaqiijiyay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sidiiq Doodishe 6 qof oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa ku geeriyooday 6 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay saldhigga degmada Waabari ee gobolka Banaadir. qaraxa oo ahaa mid aad u xoogan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid ah caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa fuliyey sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga. waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashane
iyo sidoo kale gaashaanle cabdibaasid maxamed cagey. sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa. dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyey qaar ka mid ah isbitaalada caasimadda oo hadda lagu baxnaaninayo. afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allahu naxariisto. caawa fiidkii ayaa qof nafti halliga ah wuxuu isku qarxiyay afaafka hore ee saldhigga booliiska degmada Waabari ee gobolka Banaadir. halkaasuu ku halligay naftiisa iyo naf xubno kale oo ummadda Soomaaliyeed ka mid ahaa isla markaana qayb ka ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo goobta ku sugnaa. waxay ahayd 10kii dambe ee bisha Ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyo meesha ayuu ku yimid qofka nafti halligaha ah oo qarxiyay naftiisa halligay naftiisa iyo nafta dad kale oo waxba ka galabsanin. waa 10kii bishii dambe Ramadaan. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u boogadhayo. saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa 6 qof oo dhimasho ah iyo 6 dhaawac ah oo iyo qofkii nafti halliga ahaa oo naftiisa qarribay. 6daas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada Waabari ex gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashana Ilaahay naxariista janno ha siiyo. sidaas oo kale ex gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagey oo ahaa taliyihii hore qaybta weli oo cadde ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafti halligaha uu la soo beegsaday. intaasi waa inta dhimashada ah. dhaawacyadana waxaa kaloo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida xigeenka qaybta booliiska weli oo cadde oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2 ilaa 3 ah. marka dhimashadu waa 6 qof, dhaawacuna waa 6 kale. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto. saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiyo habeenkii ay ku xiran yihiin macaamiil badan. waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada Maka al-Mukarrama ay tahay mid aad u saxmada. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho. subax wanaagsan. Ramadaan Kariim ayaanu dhagaystayaal idin leenahay. dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa soo dhoweynta ciidda barakaysan ee Ciidul Fidri iyadoo uu dunida ka jiro xanuunka COVID-19. waxaa suurtagal ah in dad badani ay guryahooda ku sugnaadaan. haddaba sidee loogu diyaar garoobayaa munaasabadda ciidda barakaysan ee Soonfur? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo diyaariyey. dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa Ciidul Fidriga oo fooda inagu soo haysa iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka corona. haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciidda ee loo baahan yahay? waxaa arrintaasi sharaxaya Sheekh Cismaan Usuli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada Britain. waxay leedahay ciidda markuu hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay. sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti gurihii la joogo ama masaajid lagu tukanaynin, sunankii waa la fulin karaa. sunanka qaarna waa la fulinaa in sida loo fuliyo waayo lama dhahayo maadaama aan masaajid la aadaynin sunanka la joojiyo maaha. maxaa kamid ah sunankeed al-ikhtisaalu yawm al-ciid. maxaa qubeyska maalinkaas in la qubeysto wey. marka ilmaha dhan iyo dadka dhan waa inay qubeystaan. quslul ciid sunnatun waa mu'akkad qaara biyirib in markaas la qubeysto. ثانيا waxaa kamid ah sunankeeda waxaa kamid ah al-aklu qabla salah. maxaa yeelay nafta fiiri 30 maalmood ama 29 maalmood ayay waxay baratay in salaada fajr markii la adimo ee cunno ee cunin ay baratay. marka inaad ku sii haysid ma aha maalinta ciida inaad tiraahid salaada tukana marka salaada tukad hadhow quraanayna waxaan quramaya. waxa sunna ah in la jibiyo soonkaas oo ah timir xabad afka gasho markii salaada fajr la adimo. salaada fajr aad tukatidba salaada fajr markii la tukado cunto lama cuni jirin. salaada fajr markaa tukatidba soonka jibi ina cunto timir afka wax geli biyo waxa heli karta geli. waa min al-aadaab waa naftana waa ku farxaysaa saas. waxay waanaysaa inay ciidida laga soo bilaaba nafta iyada laga soo bilaaba nafta inta dhar loo gelinin iyada laga ka bacdi qubayska oo imaanaya. waxaa kamid ah takbiirta Allahu akbar kabiira walhamdulillah kaseera in guriga inta joogtaan aw wadaan. شرط أول حاجة مساجد مركي الآلة جديد كلا وخرى لك حتى حصل إن حدي عجلات أهلي كرتين جروجها لقشيدو هلا لقى هذا عجلك إن تخبيرتها صعته ووح مهم وإحياء شعائر هواء. حتى هذه المقالات كدرسك ما أنت تخبيرتها يري سمعتها هو أنا على الأقل إنيتها. وحكيت له كلمة التهنية اللي تكون تهنية
maalinta ciida ah in lays yidhaaho ciidun saciid ciidun mubaarak in lays dhaho maxaa tahniyada waa caadaad wey walidaalika asxaabta waa isku tahniyaday jireen. tukashada salaada ciidda ayaa tiirdhaxaad ama udubdhaxaad u ah dabaaldega munaasabada ciidda. haddaba maadaama uu sanadkan guryaha lagu dhex tukanayo oo ay jiri karaan dad badan oo aan aqoon u lahayn qaabka saxda ah ee loo tukado salaada ciidda, waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya doctor sheekh axmed nuur oo ka mid ah culimada soomaaliyeed kuna sugan dalkan Maraykanka. dabcan culimada qaar waxay dhaheen waa sunna mu'akada, qaarna waxay dhaheen waa waajib. marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan xitaa daahirkahayn inuu yihi soo baxa, dumarkii aan xijaab haysanin inuu yihi kuwo kale xitaa ha siiyaan dharka kasoo tabalcaaraystaan, gabdhihii aan la soo saari jirin layidhi badnaanka loo soo bixiyo, ha kasoo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda. almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaargaroobo si sunna ah la soo qabaysto, dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xidhato, barfuun iyo wixii cadraa la marsado, yaa kadibna 2 ragcadood baa loo soo diyaargaroobayaa. marka intaan weli faatixa la aqrinin ragcadda hore markii salaada la galo allahu akbar la yidhaahdo yaa 7 jeer la odhanayaa allahu akbar. waa tirsanaysaa 7 jeer. kadib baad faatixada bilaabi, kadibna suurad baad ku dari insha allah sida sunnadihii towrana sabixismaadta dambana halataa in lagu aqriyo suuratul ghaashiya ama suurad alla suuraddii ilaahay ku waafajiyo ayaad ku daraysaa oo taqaano. ragcaddii labaad markii intii la sujuudo lasoo kaco ood allahu akbar soo istaagtabaad haddana bilaabi allahu akbar 5 jeer. 5 jeer baa la dhahayaa. kadib baad haddana faatixadii bilaabi, kadib baad suuradda taqaano ku dari, kadibna salaadii sidaasay ku dhammaan oo 2 ragcadood oo hal atixiyaadaad ku dhammaynaysaa. salaada marka laga baxo khudbo ayaa jirtay. ciidda waxay khilaafsan tahay jumcada. jumcada waxaa horeysa khudbada, salaaduna way dambaysaa. laakiin ciidda waxaa horeeya salaada, kadibna khudbo ayaa loo istaagaa. khudbadu waajib ma aha, waxaana laga garanayaa rasuulku inuu yihi sal alla alay slam qofkii rabaaye ha dhagaysto, qofkii rabaana ha iska tago. sidaas daraaddeed inay la isbaraarujiyo oo maadaama dadku dee wacdi badan iyo carabi toona u wada sahlanayn, luqadii aad taqaana in laisku baraarujiyo, hal aayad iyo hal xadiid laisku baraarujiyo ayaa habboon insha allahu tacaala. mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi nala socotiinay. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. dalka Kenya ayaa khafiifiyey xayiraadahay xagga socdaalka ee dalkaasi lagu soo rogay xanuunka COVID-19 awgeed. inkastoo ay dowladdu dabcisay xayiraadihii xagga duulimaadyada, haddana shirkadaha duulimaadyada iyo xafiisyada tigidhada laga goosto ayaa sheegaya in xayiraadii ay dowladdu hore u soo rogtay ay saameyn dhinaca dhaqaalaha ku yeelatay, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA Nairobi Yaasiin ciise wardheere. toddobaadka waxaa dib loo furay xanibaadii wakhtiyada kooban ee habeenkii fiidka hore la xaroon jiray, iyadoo covid-19 kana la sheegay in uu khatar weyn ku ahaa waddanka Kenya, iyadoo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay sababaha haatan loo furay 5 deegaan ee Nairobi ay ku jirto iyo iskuulaadka oo furbaya ay tahay in dadka loo fududeeyo shaqooyinka masaajidda iyo goobaha cibaadada u xiraa in 3 bilood ilaa bishii March ayaa haatan dib loo furay, iyadoo Ramadaankiina uu gabagaba yahay. shirkadaha dhinaca duulimaadyada ka shaqeeya ayuu saamayn gaara ku yeeshay xayiraadda covid-19 ee la soo rogay dhowr goor sanadka gudahiisa. cabdi maxamuud oo ugaaska loo yaqaano oo madax ka ah hay-adda dalmar tourist ee dhinaca safarka iyo gaadiidka qaabilsan ayaa VOA-da uga warramay xanibaadan haatan la hakiyey saamayn intee leeg ayay ku yeelanaysaa dadka dibadaha u safri jiray ama dalka soo gelaya. aad iyo aad baad u mahadsan tahay agasiin ciise wardheele. walaalle waxaa saameyn weyn ku yeeshay isku socodkii safaradii cudurka covid-19 maadaama la saaray 5 gobol oo wadanka ka mida aysan isku gudbi karin, yani aysan meel kale u gudbi karin. madaxweynuhu ku dhawaaqay. waxaad moodaa waan soo dhaweynaynaa marka hore, laakiin weli dadku way niyad xun yihiin, isku socod badan ma jiro. tii diyaaradaha iyadu hadda ol tii internationalka ma xirnayn, laakiin waxaa naga xirnaa UK baa naga xirnayd, maraykankaa xirnaa,
wadamo badan baa xirnaa oo australia ka mid tahay. isku socodkii aad buu u yaraaday, safaradkii dadka waddanka imaan lahaa way istaageen, dalxiiskii wuu baaba'ay, marka dhaqaalihii dhulkuu galay, marka dadkii xafiisyada u furnaa xafiisyadoodii way iska xiran yihiin, qof mataqaana shaqaalihii inta badan way fasaxeen, marka dhibaato aad iyo aad u ba-an ayuu la yimid xanuunkan mataqaanaa bandemiga covid-19ka. waana arrin mataqaanaa adduunka o dhan saameynaysa markaad si u fiiriso. waxa hadda kenya gaar u ah ma aha, laakiin waxaan rajaynaynaa in isbeddel badan uu dhici doono, maadaama hadda yacni lagu dhawaaqay in la furo, in bal mataqaanaa cudurka sanadaha dambe soo socda inuu hoos u dhici doono, soona noqon doonaan safaradii iyo dulimaadyadii iyo isku socodkii, shaqaduna ay hagaagi doonto. marka rajo weyn baan ka qabnaa. dowladdana waxaan leenahay yacni mar walba waxay go-aan ku qaadataa go-aan yacni laablakaca oo ay ku xirto. marka waxaan leenahay isku socodka halla sharciyaha loo soo saaro, laakiin xanibaadda iyo isku socodka yacni yaysan ku degdegin inay xirto. hadda maanta oo kale markaad fiiriso magaalooyin kala duwan maqaaxiyihii waa la furay, laakiin dadkii waxa weye kastamku ka kala tegay, magacun bay u furan yihiin, wax shaqaa ma hayaan. xafiisyadii la furay oo kale wax shaqaa ma hayaan. marka dowladdu mar walba waxaan ku dhaleecaynaynaa inay ku degdegto in ay lockdownka saarto wadamada gobolladana ay kala xirto. mar kasta oo lockdown lasoo kordhiyo dhibaato ayuu ku yahay safarka, caqabad yacni joogto ah ayayna mataqaana lagala kulmaya. qofka waxaa fiican shuruudaha in laga baaro covidka, safaraduna ay socdaan. waxaan leenahay dhibaatadan taagan ee ah mar walba in dadkii la caburiyo ah, waxaan dhahayaa hala joojiyo. aad ayadu maasanta kaasi wuxuu ahaa cabdi maxamuud oo loo yaqaano ugaaska, oo ah madaxa shirkadda dalmar tourist ee dhinaca socdaalada. iyo sicso wardheere, v o a nairobi. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa axaddii shalayto kulan aan caadi ahayn ugu baaqay inay iskugu yimaadaan madaxda gobolada ay ka kooban tahay boqortooyada Ingiriisku, kadib markii xisbiyada mandaqada Scotland ee u ololeeya gooniisutaagoodu ay ku guulaysteen aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. hogaamiyaha xisbiga magaciisa loo soo gaabiyo SNP Nicole Sturgeon ayaa sheegtay in natiijada doorashada ay muujinayso in afti labaad laga qaado ummadda reer Scotland ay tahay mid lama huraana. siyaasiyiinta London ku suganna haddii ay isku dayaan inay ka hor yimaadaan dimuqraadiyadda Scotland ay dagaal la geli doonaan. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. boqortooyada Ingiriisku waxay ka kooban tahay mandaqadaha England, Scotland, Welshka iyo waqooyiga Ireland, iyaga oo saddexda mandaqadood ee dambe ay leeyihiin maamulo u gaar ah. ra-iisul wasaare Johnson ayaa Nicola Sturgeon ugu tahniyadeeyey inay mar labaad ku guulaysato kursiga hogaanka xisbiga SNP, laakiin u sheegay hogaamiyeyaasha mandaqadaha boqortooyada Ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay. warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeeray ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sannadaha soo socda. intee ayaa la odhan karaa uu leegyahay haddaba warwarka Boris Johnson uu ka qabo in mar labaad afti laga qaado dadweynaha mandaqada Scotland? mase la saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo bartay cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain. walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare Johnson in mar labaad wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaay Scotland si ay madax banaanidooda dib ugala laabtaan midowga United Kingdom. taa haddii laga gudbo cabsida iyo walwalka, haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho, taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan, afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo. natiijada kasoo bixi kartana doorkan waxay u eg tahay in ay u janjeedho xagga in ay madax banaanidoodii dib ula soo noqdaan Scotland. markii hore 2014 markii loo qaaday afti Scotland in ay ka xuruudo UK, dadweynaha 55% waxay u ceedeeyeen inay UK ka mid ahaadaan. hase yeeshee waxaa ka dambeeyey aftidii UK loo qaaday in ay kaga baxdo Yurub ama inay kaga mid noqoto. Scotland waxay u codeysay in ay Yurub ka mid ahaato. maadaama fursadaas Scotland ay weysay,
haddana gabadhan ay ku ballan qaaday inay siin doonto fursad madax banaanidu ay kula soo noqon doonaan, doorashadiina ay ku ballan qaaday, codkiina ay ku heshay, fulintii ayada laga rabaa. marka arrimahaasa isbedelay. mar labaad haddii sidaa la helo waxay u eg tahay xagga madax banaanida. natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii khamiistii xisbiga SNP ayaa baarlamanka fadhigiisu yahay magaalada Edinburgh ku guulaystay 64 kursi 129 kursi ee loo tartamayay. xisbiga SNP aqlabiyadda baarlamanka hal cod ayaa ka dhiman, laakiin maadaama oo ay xisbiga The Green Party ay 8 cod heleen, waxay heleen aqlabiyadda xisbiyada u oleeya gooniisutaaga mandaqadaasi. haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax banaanida ee Scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada London? waa kan Maxamed Ibraahim Hirari oo degan magaalada Glasgow ahna gorfeeye arrimaha Britain. xisbiga madax banaanida u ololeeya ee halkan ka taliya SNP waxay heleen 64 kursi. doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen 65 kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamanka. waxay hadda kaashanayaan xisbiga Greenska oo iyaguna gooniisutaaga aaminsan oo helay 8 kursi. wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax banaani 2 sannadood gudahood. taas waxaa ku gacan saydhay dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo sheegay inaanay dowladda Scotland siin doonin awoodda ay afti sharci ah ku qabsadaan. Nicola Sturgeon iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda nagu soo wareejinin awoodda qodobka 30aad ee ay aftida ku qabanayaan, in ay baarlamanka Scotland ka sharciyeyn doonto afti madax banaani. taasna sharciguma ogola oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la hadhay markii la sameeyey sharciga Scotland ee soo baxay 1998. Mrs. Sturgeon oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19, kadibna marka la gaadho xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan, taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado Scotland. mandaqadaasi waxay boqortooyada Ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii 1707 aftidii loo qaaday in Scotland noqoto dalka madax bannaan. Britain inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii 2014 boqolkiiba 55 dadkii codeeyeyna ay door bideen inay weli kusii jiraan boqortooyada. boqolkiiba 45 ayaana u codeeyey gooni isutaaga xilligaasi. tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aad isugu dhowaayeen. aftidaasi waxaa ka daba timi go-aankii ay boqortooyada Ingiriisku kaga baxeen Yurub oo boqolkiiba 62 dadka mandaqada Scotland ay u codeeyeen inay kusii jiraan midowgaasi. waxaa laga cabsi qabaa haddaba inay dad badan oo markii hore u codeeyey inay Edinburgh qayb ka sii ahaato boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama oo ay Britain ka huleeshay midowga Yurub. madaxda Yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay Scotland noqoto dowlad ka madax bannaan Britain, gacmo furana ay ku soo dhoweeyaan si ay ugu karbaashaan go-aankii ay Britain kaga baxday midowgooda. wakhtiga ayaana sheegi doona. cabdi xaafid cawir ismaaciil, VOA, London. warbaahinta gaarka loo leeyahay ee dalka Shiinaha ayaa ugu baaqday dowladda Shiinaha in ay macluumaadyada xasaasiga ah ay la wadaagaan shacabka ka hor intaan laga faa'iidaysan buunbuunintooda sida gantaalkii maalmahan caalamka qabsaday. sidoo kalena waxa ay dowladdu Shiinuhu sheegtay in ilaa iyo 10 gantaal oo kale ay sanadkan gudihiisa u diri doonaan hawada sare si ay u dhammaystiraan saldhigooda hawada. wariyaha VOA Ibraahim Cumar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia. Shiinaha sida ay sheegeen waa ay la socdeen dhaqdhaqaaqa gantaalkooda oo ay hawada sare u direen, laakiin waxa ay ka gaabiyeen inay dadka la wadaagaan xaaladiisa. taas ayaana sababtay in jahwareer uu geliyo caalamka oo dhan oo ay dhegta u taagaan halka uu kusoo dhici doono. laakiin dowladda Shiinaha ayaa nusu saac ka hor inta uusan soo dhicin ku daabacay boggooda iyagoo sheegay halka uu ku wajahan yahay. waa kan Cabdulqaadir Maxamed Siciid oo ka mid ah ardada wax ka barta Shiinaha oo ii sharxaya. Ibraahimow, sida ay daabacday
hay-adda cirbixiyaanada China ee magaceeda loo yaqaano China Manned Space Agency oo loo soo gaabiyo CMSA 30 daqiiqo ka hor intaan aanu dhulka soo gaarin waxa ay ku soo daabaceen website-kooda subaxnimadii Axadda in gantaalkii adduunka dhan uu wada sugayay oo dhagta loo taagay uu dhulka soo gaaray. Waxay sheegeen oo kale cabirka uu ku dhacay iyo meesha ay ku beegan tahay. Waxay dhaheen burburkiisii wuxuu ku dhacay dhulbaraha qaybtiisa bari cabirka 72.47 digrii, dhinaca waqooyi 2.65 digrii oo ku beegan galbeedka Maldives dhinaca badda ah. dhanka kalena warbaahinta dowladda iyo midda gaarka loo leeyahay ayaa ka codsaday dowladda Shiinaha inay arrimahan oo kale ee xasaasiga ah ay bulshada la wadaagaan oo aanay ka aamusin si aan looga faa'iidaysan bumbuunintooda. runtii buuqa iyo sawaxanka uu dhaliyay gantaalkan aad iyo aad bay waxay u saameysay xaafadda hadeer afka dowladda ku hadasha iyo weliba midaan afka dowladda ku hadlin Chinesku ay leeyihiin waxay soo qorayaan oo leeyihiin hadda laga bilaabo waa in dowladdu ay toos ula hadashaa dadka caalamka oo ay u sharaxdaa haddii arrintan oo kale ay timaado oo aanay la sugin in intuu dhulka soo gaarayo gantaaladan oo kale. sababtoo waxay aaminsan yihiin in arrintan ay China u noqotay wadamada reer galbeedka oo ay aad iyo aad u buunbuuniyeen waxaana khatar badan aanay ku jirin. laakiin saynisyahanada ku xeel dheer arrimaha la xiriira gantaalada hawada sare loo diro ayaa mar walba qiyaasayay inuusan wax dhiba geysan doonin kolka uu soo laabto. sida ay qiyaasayeen aqoon-yahanada adduunka oo dhan xagga cirka ah China uu kusoo dhici karo meel dad degan yihiin ama uu khatar keeni karo waa ay yarayd, laakiinse waxaa aad iyo aad u buunbuuniyey arrintan ayay leeyihiin Chinesku saxaafadda. wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha waxa ay ka hadashay arrintan waxaana ay sheegtay in ay diri doonaan sanadkan 10 kale oo gantaal si loo dhammaystiro saldhigga cusub ee Shiinaha uu ku yeelan doono hawada sare. mar la weydiiyey afhayeenka u hadlaa wasaaradda arrimaha dibadda China shalayto wuxuu sheegay in aanay wax dhibaato aanay ka qabin gantaalka soo laabashadiisa ayna tahay war ay bumbuuninayaan saxaafadda reer galbeedka oo aad iyo aad uga masayrsan China horumarkay gaartay. waxaa la filayaa oo kalena in Chinesku ay diri doonaan sanadkan gudihiisa 10 dayax gacmeed si ay u dhammaystiraan dhismaha xaruntooda cirka oo ay markaasna bilaabi doonaan inay diraan dayax gacmeedyo ay la socdaan cirbixiyeeno. warbaahinta Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale waxay aaminsanaayeen in jajabkiisa uu soo gaari doono dalalkooda. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia. haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada mid ka mid ah qasaa'idka nebi ammaanka ee aan ugu talagalnay bisha Ramadaan. intaasina dhegaystayaal waxaanu ugu idil guud ahaan baahinteena idaacadeed oo idinka imaysay laanta af soomaaliga ee v o a. tanii kulanti dambe waa dhammaan bahda af soomaaliga ee v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo. Say no,
This is VOA News via remote. I'm Tommy McNeil. Sudanese authorities Sunday deported around 36 Ethiopian peacekeepers working on the UN mission in Darfur to a refugee camp, according to the state-run news agency. Al-Fatah Ibrahim Mohammed, head of the refugee agency in North Darfur province, said the troops are among 120 Ethiopian forces from the Tigrayan ethnic group who have sought asylum in Sudan after their stay ended earlier this year. He said the troops, including 14 women, refused to return after being recalled by their home country, Ethiopia, for fear of being detained by the federal government. 5 police officers are among at least 6 dead people killed Sunday evening in a suicide bombing in Mogadishu, according to witnesses. A police spokesman confirmed that 2 police commanders are among those killed. A civilian who lived next to the station also died in the explosion. Police said 6 other people were injured. Somali officials blamed the al-Shabaab militant group for the attack. Israeli police faced off with Palestinian protesters in another night of clashes in East Jerusalem. The violence Sunday night came a day before Israeli nationalists had planned to parade through the Old City, and an annual flag-waving display meant to cement Israeli claims to the contested area. The late-night skirmishes raised the likelihood of further clashes during the annual Jerusalem Day celebrations. Israeli police gave the go-ahead to the parade Sunday despite days of unrest and soaring Israeli-Palestinian tensions at a flashpoint holy site. There's also anger in a nearby Arab neighborhood where Jewish settlers are trying to evict dozens of Palestinians from their homes. This is VOA News. The United States top infectious disease doctor says it was highly likely officials have been undercounting the number of fatalities from COVID-19 after a new report from the University of Washington estimated the death toll was nearly double. The analysis by the Institute for Health Metrics and Evaluation pegs the U.S. death toll at more than 900,000. The CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Wednesday put its latest official estimate at more than 575,000 deaths in the United States due to the novel coronavirus. While the world's wealthier nations have stockpiled coronavirus vaccines for their citizens, many other poorer countries are still scrambling to secure the doses. A few have yet to receive any. The World Health Organization says about a dozen countries, many of them in Africa, are still waiting to get vaccines. Those last in line on the continent, along with Chad or Burkina Faso, Burundi, Eritrea, and Tanzania. WHO says delays and shortages are driving African countries to slip further behind the rest of the world in a rollout of COVID-19 vaccines, with the continent accounting for only 1% of the vaccines administered worldwide so far. Just before an online meeting with U.S. Vice President Kamala Harris, Mexico President Andrés Manuel López Obrador very publicly accused the U.S. government of violating Mexico's sovereignty. The issue apparently did not arise in the meeting with Harris, saying it's not on the agenda and it's not our intention to create a bad atmosphere. López Obrador said ahead of the talks. The meeting itself, the portion made public, focused on immigration, a key issue in U.S.-Mexico relationships, along with trade, border security, and the pandemic. More than 1,200 migrants and several decrepit, overcrowded fishing boats on Sunday reached a tiny island in Italy in a span of 12 hours as human traffickers exploited to calm seas and warm weather to launch multiple vessels, according to the mayor. The first of the migrants arrived at 5 a.m. at Lampedusa. Mayor told Sky News it was the biggest number of migrants to come ashore this year in a single day at an Italian port this year. He appealed to the premier to put migration on the agenda, even as the government is heavily focused on guiding Italy's economic and social recovery from the COVID-19 pandemic. There is more at voanews.com. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 10. And here are some of the stories we are covering. An Ethiopian opposition leader says a report about prison conditions in Oromia region does not go far enough. It is short of details, probably avoiding some real sensitive issues about some of the killings and some of the detentions, but it is far better than in the past. Chad's Transitional Military Council seeks support from its Central African neighbors. The United Nations says nearly 14,000 people in Madagascar are suffering from famine. Today is World Lupus Day. We'll have a report about lupus in Kenya. And South Sudan's president dissolves parliament. The president has dissolved the parliament to pave the way for the reconstitution of the parliament as it came in the revitalized agreement or resolution of conflict that was signed on September 12, 2018. And refugees advocates in Malawi are alarmed over a decision by President Lazarus Chakwera. Those stories plus Samson Omale Sports are coming up on Daybreak Africa. Ethiopian opposition leader says a report by the Ethiopian Human Rights Commission about the treatment of prisoners across the Oromia region is encouraging but does not go far enough. Merera Gudina, chair of the Oromia Federalist Congress, says Oromia is a very large region and it is possible that the commission investigators did not visit all the prisons. In a report posted on its Facebook page May 6, the commission said it believes that the conditions of prisoners detained at police stations amounted to grave violations of human rights. The commission said from November 20, 2020 to January 12, 2021, it deployed monitoring teams at 21 selected police stations where a large number of prisoners arrested following the assassination of artist Hakailu Hundessa were being detained. The commission said detainees were held in unhygienic. The Oromia Attorney General's office said it investigated the matter and denied human rights violations. Gudina hopes that the commission will cover the entire region next time to document possible abuses. It is short of details, especially some of the critical things, but it is far better than in the past. What do you mean it is short of details? Short of details and probably avoiding some real sensitive issues about some of the killings and some of the detentions, but in terms of it's already also limited areas, around 21 police stations. You know, Oromia is a very big chunk of land. It is not inclusive and short of details, but in the right direction. Are you suggesting there are more disturbing details from these detention centers than has been reported by the commission? Yeah, exactly, yeah. What are some of those concerns? For example, you know, there are a lot of extrajudicial killings across Oromia. I'm not sure the report mentioned that. You know, Oromia is, you know, a very large chunk of land and probably the so-called investigators or reporters of the Human Rights Commission this is a very limited area. 21 out of 50 million population. Oromia is having about 50 million population. Not a very large chunk of land, and a lot of things happening in these areas. So you believe that this report is the right step in the right direction? Yeah, it is correct. We expect more, you know, more things from them. As an Ethiopian institution in the claiming to be independent and neutral, really we want more of it, more detailed, more covering a lot of areas. You know that the Oromia Attorney General has denied the Human Rights Commission report. It is there for everybody to see. There's very massive human rights violations taking across the country. What do you want to see happen because of this report? What should be done? You know, one, follow up, very lean, follow up of the report to cover more areas and also to detain some of the things that are happening across the country, not only in Oromia, across the country. You know, we are in a very serious problem. Merera Gudina is chair of the Oromia Federalist Congress. He was speaking with us from the Ethiopian capital, Addis Ababa.
A spokesperson for South Sudan President Salva Kiir says Saturday's dissolution of parliament is in line with the peace agreement. Attain Wek Attain says the agreement that ended the 2013 civil war calls for expanding parliament from 400 members to 550 to include members from all groups who signed the peace agreement. The President has dissolved the parliament to pave the way for the reconstitution of the parliament as it came in the revitalized agreement or resolution of conflict that was signed on September 12, 2018, in order for the parliament to comprise of 550 members, drawn from all the parties that signed the agreement, starting from the SPLM-IG, SPLM-IO, and the SAWA, as well as the OPP. So these are the components of the parliament. We are going now to be reconstituted, and the parliament will be appointed accordingly. Where are we in terms of possible elections in South Sudan? As we have seen, James Bati, the revitalized peace agreement is behind schedule, simply because the metrics that was drawn in 2018 might not have been appropriately followed because of the challenges that are facing the implementation of the revitalized peace agreement or resolution of conflict. So we are running behind, which may require the parties to sit any time to decide what they should do, whether they will be going for the election as is scheduled or they will postpone it to 2023. Because if they are to go for 2022, the 2022 is only 7 months away from now, as I speak with you. And 7 months are not enough to conduct the census and to draw the constituencies that people will be going to contest the election. So these are the challenges that are facing the agreement. So I cannot definitely tell you about when the election would be conducted. The last time you and we spoke, we talked about also implementation on the unified South Sudan military. Yes. Where are we on that? That's why I'm saying the challenges I see enormous. I told you last time that as we are still undergoing armed embargo, it will make it difficult for the revitalized national unity government to graduate the unified forces because they don't have guns. The training is still also ongoing, like national security has just taken the unified national security forces to the training, which is undergoing now. It might take months or several weeks before you complete unifying the national security forces. The national army forces are also, some of them are still also under training. And the question comes whether we will be having guns to graduate them. If they don't have guns, we will look for a new name. Was all this delay a deliberate attempt? Or, some people may argue that this was deliberate on the part of your government, the president, just to delay the process so as to remain in power. No. The blame actually should be directed to the international community who want us to work, but they are actually putting their head on our legs. We cannot move because we are being tied down. This is the problem. If we are allowed to move, then why imposing the army embargo? And the agreement stipulates that the national army has to be drawn from all the parties and must be inclusively trained in order to take over the security sector in the country. So it is like you are telling person to person to walk and you are tying his or her feet down. It's always very nice to talk with you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Attain Wek Attain is spokesperson for South Sudan President Salva Kiir. He was speaking with us in the South Sudan capital, Juba. Envoys from Chad's Transitional Military Council are seeking support from its Central African neighbors in fighting rebels who is said endanger a smooth transition to civilian rule. Chad's delegation told Cameroon's president that without peace, transition to civilian rule would be impossible. But Chad's opposition says the military rulers should immediately step down if they genuinely want peace. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaoundé, the latest stopover for the Chadian envoys. Abdelkarim Idriss Deby, Deputy Director of Cabinet of the Republic of Chad, held discussions for close to 2 hours with Cameroon President Paul Biya Friday. Abdelkarim is a son of Chad's late President Idriss Deby. He says Cameroon is one of the 5 Central African states Chad's Transitional Military Council asked him to visit and give an account of the situation since Deby died on April 20, 2021. Comme vous le savez, le Tchad a vécu une tragédie, le départ prématuré du feu maréchal au front. He says Chad has been witnessing a series of protests and deadly rebel attacks
that are threatening its unity since Deby died. He says Chad's Transitional Military Council has sent him to all member states of the Central African Economic and Monetary Community to explain plans the military leaders have for a smooth transition to civilian rule. He says Chad needs the assistance of its neighbors for peace to return. When asked, Abdel Karim declined to comment on the type of assistance his country needs. He, however, said security will be threatened in the region and spill over to all Central African states should the situation in Chad remain fragile. A rebel force known as the Front for Change and Concord in Chad, or FACT, has been involved in bloody battles with Chadian troops on the Central African states' northern borders with Libya, Niger, and Sudan. Chad said several hundred troops, rebels, and civilians have been killed within a month. Chad, under Deby, was a key ally of France in the fight against jihadist groups across West Africa, including Boko Haram. These terror groups and other jihadist militants have, over the years, destabilized parts of Chad, Cameroon, Nigeria, and Niger. Joseph Vincent Tuda Ebode is a lecturer in international security and defense at the University of Yaoundé-Soa. He said Chad's envoys are visiting Central African nations to lobby for the kind of support the former president of Chad had from his neighbors all through his 30 years rule. Le Cameroun doit se sentir concerné au premier plan. D'abord parce que nous sommes liés dans une alliance. He says Chad's late President Deby and Cameroon President Paul Biya signed an agreement to assist each other in maintaining security in both countries and in providing support against attacks. He said Chad's Transitional Military Council wants to maintain the agreement signed between Cameroon and Chad. He says the terms of the agreement between the countries are clear. An attack on Chad is synonymous with an attack on Cameroon and vice versa. Massa Success is a Chadian opposition leader of the Transformers movement. He says although there are serious threats to stability, civilians do not want Chad's constitution violated. He says the Transitional Military Council is not showing signs of wanting to hand over to a civilian rule. He spoke via telephone from Chad. Il parle de 18 mois renouvelables. Si on crée encore une situation de sécurité, on va dire, ah, mais on voulait... Massa says the charter presented to Chadians by the Transitional Military Council states that the military rulers can renew their mandate of 18 months if insecurity persists. He says a national dialogue should be convened and a civilian designated to lead the transitional period while the military carries out its duty of maintaining peace. Massa said any civilian chosen to lead the transition should not be a candidate at the presidential election. He said Cameroon, Gabon, Central African Republic, Equatorial Guinea and Congo-Brazzaville should help bring peace by advising Chad's military to hand power to civilians. Currently, Chad's Transitional Military Council is headed by Idris Deby's 37-year-old son, Mahamat Idris Deby. Mahamat was named interim head of state by the council after his father, who spent more than 3 decades in power and was one of Africa's longest-serving leaders, was killed fighting rebels at the age of 68. Mahamat promised to hold elections within 18 months, but the opposition and rebels dismissed the takeover as a coup and said the military must relinquish power to a civilian-led government. Thousands were on the streets to protest military rule. The demonstrators said they do not support what they called a Deby monarchy. The rebel group FACT has vowed to depose the Transitional Military Council should it fail to hand over power to civilian rule. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Botte in Washington. Today is Monday, May 10. The United Nations says nearly 14,000 people in Madagascar are suffering from famine, while more than 1 million others are facing acute hunger and forced to resort to extreme measures to keep from starving. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva. More than 1.1 million people in southern Madagascar are unable to feed themselves because the country is suffering from its most acute drought in 4 decades. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs warns the humanitarian crisis gripping the country is deteriorating rapidly. OCHA spokesman Jens Laerke says conditions in the Amuasari Atsimo district are particularly serious. About 75% of the population is facing severe hunger, and nearly 14,000 people, he says, are catastrophically food insecure. We have, during this crisis, for the first time, identified 14,000 people who are in famine condition. Now, children are, of course, especially vulnerable. There are extreme malnutrition, and as we have heard from others, there is no doubt that the level that this has reached now is costing lives among children and others. Aid agencies say the number of children admitted for treatment for life-threatening severe acute malnutrition in the first quarter of this year was 4 times the 5-year average. That condition causes wasting, stunting, and can lead to problems of physical and cognitive development. Laerke says the United Nations is in desperate need of money to stave off a looming catastrophe. He says the UN is renewing an appeal for $76 million, which was launched in January. He says only 22% of the funds have been received. He says that amount falls far short of what is needed to provide life-saving support for more than 1 million people. The amount of money that it's asking, 76 million, is not a lot of money. It frankly is not in the bigger picture. And now there is really an opportunity for donors to step up with a modest amount of money and save lives from one day to the other. Laerke warns, however, time is running out fast for people in Madagascar, especially for children. He says there's no time to waste. International donors must give money to support this life-saving effort, and they must give now. Lisa Schlein for VOA News, Geneva. Today is World Lupus Day, and the U.S. Centers for Disease Control, the CDC, says more than 5 million people have been affected by the disease worldwide. The CDC says 70% of the patients have systematic lupus, a condition that affects vital body organs such as the heart, lungs, kidneys, and the brain. As Marie Ojiamo reports from Milwaukee, USA, doctors say lupus is difficult to diagnose, which makes it a life-threatening disease. According to the Center for Disease Control, CDC, systemic lupus is the most common type of lupus, affecting 70% of patients with lupus. In Kenya, most patients get late diagnosis since the society believes the condition is a curse, hence delayed treatment. There is no cure for lupus, but medical interventions and lifestyle changes can help control it. A Kenyan, Jemima Shikuku, was diagnosed with lupus on May 10th, 2018. On the Lupus Day. This is after the doctor's efforts to treat her body rash, inflammation, and severe headache did not bear fruits. There was a misdiagnosis at first. I was told to go get checked my eyesight because they thought probably it was the one which was causing the headache. Before my diagnosis with the chronic headache, I had a lot of inflammation of the joints and the skin. I also had muscle weaknesses. I've really had a lot of challenges with the lupus, like physical stress. World Lupus Day increases awareness of lupus and helps gather support for the more than 5 million people affected by this condition worldwide. Jemima says there is need to create awareness in Kenya and other African countries. There's really a need to create awareness in Africa, especially on lupus, because it's really misunderstood. Like when I was sick, I remember some people could come and ask me if I wronged someone. Some people can tell you are bewitched.
Another Kenyan, Ochola Ratego, lost his sister to lupus in 2016 after battling the condition for nearly 10 years. Multiple organ failure made his sister Winnie Ratego succumb to the condition while on treatment in India. We were promised that at India she could get that medical attention that she deserves and things could get better for her. She was then assigned to go for a second checkup. But unfortunately, on the day of traveling, when they landed in New Delhi, she got really, really sick at the airport. From there, those 2 weeks that she spent in India doing a second checkup, the body organs were failing to function normally. On June 16th, she passed on. Dr. Etau Ekwom, a rheumatologist from Kenyatta National Hospital in Kenya, says lupus is a very difficult disease to diagnose given its rare condition. Lupus is a difficult diagnosis to make, and therefore the delay in diagnosis, because usually to make a certain diagnosis, one requires to have had certain symptoms over a duration of time, and that may delay the diagnosis. It's not only in Africa or Kenya where lupus diagnosis is late. It's a phenomenon recognized globally, and one usually would require a high index of suspicion in the diagnosis. Dr. Etau says laboratory support is needed in Kenya to support the patients living with lupus. Patients who will die from lupus usually will die because they have severe complications of lupus, complications that include kidney involvement. One of the challenges at the initial phase of this COVID-19 was the lack of availability of hydroxychloroquine. The other challenge, of course, is laboratory support. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Moreno Giambo in Milwaukee, USA. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson. Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the draws for the Total Women's African Cup of Nations Morocco 2022 qualifiers scheduled for today at the CAF headquarters in Cairo, Egypt. The Total Women's African Cup of Nations Morocco 2022 will pit the continent's finest women's football teams against each other in Morocco. The Total Women's African is also a qualifier for the FIFA Women's World Cup Australia-New Zealand 2023. Also on Monday, CAF will conduct 2 more draws. African qualifiers for the FIFA Under-17 Women's World Cup India 2022 and the FIFA Under-20 Women's World Cup Costa Rica 2022. Staying with CAF, reactions have continued to trail the decision of the Confederation of African Football in consultation with the world governing body FIFA to postpone the CAF qualifiers for the 2022 FIFA World Cup slated for Qatar. The first set of matches in the qualification competition were due to be played in June, but the postponement came after taking into consideration the current challenges caused by the COVID-19 pandemic. There will now be double match days in September, October and November, with the 10 group winners advancing to the final round next March. Jide Alabi is a football analyst. He tells me that there are lots of positives African national football teams can take away from the shift in dates. It's going to be a plus for the team because that means they're going to play much more matches together, which is a very good thing for me. If it were to be the usual schedule and you don't have this kind of cramped situation, then you can talk like that. But right now, any opportunity for you to play football is good for your team. Jide Alabi speaks further on why this decision was taken, even though the African continent is not as worse hit with COVID-19 as Europe, South America, or the United States. In Africa as well is very difficult, especially with the crisis all over so many parts of Africa right now. Africa has a unique problem which affects football and every other thing in Africa. In boxing news, Senegalese-born Frenchman Souleymane Sissoko on Saturday won the WBA Super Welterweight title at the AT&T Arena in Arlington, Texas. Souleymane Sissoko had to overcome a 9th round knockdown before sealing a split decision win over Kieran Conway. The Frenchman took a knee after an uppercut from the Northampton fighter, but gained victory with scores of 96-93 and 95-94, while the third judge scored it 97-92 to Conway. Together, we worked very hard for the training camp. We had a good training camp, so I'm very happy.
and I can't wait to defend my belt right now. That's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington. Thank you, Samson. Have a good day. That's it for this Monday, May 10th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Button.